nabadgelyo. aad baan idin salaamayaa dhammaantiin. sharaf iyo karaame ciise rabbi dushiina ha yeelo. anigu waxaan ahay Sayd Cali Macalin Ibraahim. kanina waa barnaamijkeenii Sabuur. u ogolow naftaada inaad dhacdo oo haddana aad istaagto, waayo aragnimaduba waxa ay ka timaadaa markaad isbarataan adiga iyo dhibka. si walba oo aad khibrad u leedahay, haddaadan hore u soo dhibaatoon ama aadan hore u soo guuldaraysan, nolosha inta aad ka fahansan tahay way koobnaan doontaa ama way yaraan doontaa. balse mar walba oo aad tahay qof khibrad yaqaan ah, waxaad tahay qof dhib badan soo maray, balse aragnimo ka qaatay. adigu noqo dadka dhibaatooda, isla dhibaatadaasna xalka ka dhex raadiya, kadibna guulaysta. waayo Soomaali waxay hore u tiri, waxaan loo dhibaatoon lama helo. nolosha oo dhan dadka waa ay u macaataa marka ay la dhedheelaan dhibaatada iyo jidka saxariirta ah. sariiqadii loo dhigo qof caqli badan, ma moodayo inay tahay midii uu dunida kaga tegi lahaa, balse jid aan siriq lahayn buu jeexdaa si uu hadafkiisa u gaaro ama uu u dhammaystirmo. ha u ogolaan naftaada inaad joojiso waddo aan kuu qalmin, meel aan kuu qalmin iyo nolol aan kuu qalmin, balse u ogolow naftaada inay istaagto maktabad walba oo qof guulaysta uu istaagi karo, jid walba uu mari karo qof si dhab ah u guulaystay adduun iyo aakhiro. inaan guulaysano xaq baan u leenahay, balse dadka xaqa u yeelanaya waa kuwa dadaala, jidka siriiqda badanna u dulqaataa, dhib iyo dhibaatooyin badanna u sabraa. waxay hore Soomaali ugu mahmahday mar kale, sabraa ayaa sadkiisa helaa. qofka sabraa oo u dulqaata wax walba, dhib iyo saxariir walba u dulqaata, ayaa sadkiisa hela. sadkaasina waa guusha. marka qof walba oo sabraa oo ku sabraa dhibka uu soo maray, dadaal iyo aragnimona ka qaataa, qofkaas ayaa nolosha inuu ku guulaysta u qalmaa oo uu ku raaxaysto noloshiisa. sidaa darteed, adigu noqo kan noloshiisa ku raaxaysta, ku dhedheela dunida. adigu waxaa tahay guulaysta guusha u qalmaa. xaq uma lihid in dunidani ay kugu dhedheesho. ka noqo arday mucjiso ah dunidan. dunidu inooma ogolaan doonto inaan macallimiin noqono, balse waxaynu awoodnaa inaynu noqonno arday dunida ka yaabiya, yacni cabqariyaal. nabadgelyo.